meeqaad doorashada hor istaagtay doorashada dalka u socdo meeqaad hor istaagtay inta uu hadlo in leeg baa loo soo diraya waa ka shifeynaa maalinkeeda hadday xishoon waayaan bannaankaa la soo dhigayaa waana la kashifayaa annagu waxaan u joognaa brandinka anigu weligay waa mucaarada u ahaan jira waxna waa sheegi jir dalkaana waxaan ognahay rag mas-uuliyiina oo lacag lagu soo siiyey oo dowlado kale lacag ay soo siiyeen oon haynaa faktiskooda iyo xaqiiqdooda oo maaragtay magac dil sameeya biil ku qaata magac dilkana sameeya biilna ku qaata waan ognahay taas waana la ogyahay wayna is yaqaanaan dadkaas inay dadka soo hor istaagaan ma ahayn oo weliba Soomaali inay wax u sheegaan ayagoo la ogyahay dawlad kale lacag inta soo siisay markaas saas leenahay aniga dadka ku leebal gareeya dadka may laakiin xaqiiqo la hayo weeye in inta wax la soo siiyo biil kasta u soo dhaco meeqaad sheegtay meeqaad dawladda iyo dadka ceebays meeqaad dad wada socday kala firdhis dawladda 100 mowqif oo dawladdan ka horeysay intaasoo mowqif oo ay qaateen oo dalka ka qaateen oo garab istaagay baa jira intaasoo shuruuc oo ay keeneen golaha baarlamaanka oo sharciga batrool ka mid ah oo aan hor kacnay oo niri dalka horumarkiisa ku jire hal laga horwareey kii doorashooyinka ka mid ah horey hal loogu socdo dalku qof iyo cod ha noqdo waxa ka mid ah dawladaha khaliidka markii go'aamada la qaatay oo dawladeenu ay maaragtay mowqif ayday mowqifkii maana dhihin waa kala aragti duwantiina mowqifkii waan la qaadanay ku difaacnay waa inay kala socnaadaan marka waxyaalaha xukunka lagu kala ridanayo iyo dalka sumcadilkiisa inay kala socnaadaan dalkan waa la wada leeyahay bari waa kursi u socota laakiin waxaan ognahay qaarkood inay kursi u soconay loona sheegay dawladaha ay u shaqeynayaan ay u sheegeen kursi ku geyn mayno laakiin intaana ku ogolnaa sandureertadaana ku ogolnaa qaado kursiga hebel iyo hebel baan u wadnaa marka arrintaas runtii dee annagu waxaan u joognaa dalkan brandinkiisa inaan dhisno brandinkiisa qofkii dilayana waa ka celinaynaa loo aamusi mayo oo lama dhahayo saas waay in la ismucaarado waa la yaqaan in wax qaldan oo xukuumadda iyo dawladdu wato dawladdan dee waaba aaminsan tahay maba ka mid ahanba afka hal is qabto cidna dhihi mayso wixii saxida platformisna waa leeyihiin waana la sheegi karaa qofka muwaadinka laakiin sidaas cad loogu soo dhiirado waa ayaan darro weyn iyo garaad yari weyn ayaan ku tilmaami karnaa